injiilka sida Marcos u qoray cutubka 16aad goortii sabtidii dhammaatay maryantii reer magdala iyo maryan oo ahayd yacquub hooyadiis iyo salome waxay iibsadeen dhir udgoon inay u yimaadaan oo mariyaan isaga waa berigii maalintii ugu horreysay ee toddobaadka waxay yimaadeen xabaasha goortii qorraxdu soo baxday waxay isku yidhaahdeen ayaa dhagaxa xabaasha afkeeda inooga giraangirinaya goortay eegeen waxay arkeen dhagixii oo la giraangiriyey oo aad buu u weynaa goortay xabaashii galeen waxay arkeen nin dhallin yar oo midigta fadhiya oo khamiis cad gashan markaasay aad u naxeen wuxuu ku yidhi ha nixina waxaad doonaysaan ciisihii reer naasareed kan isku tallaabta lagu qodbay wuu sare kacay oo halkan ma joogo waa taa meeshii la dhigay laakiin taga oo waxaad ku tidhaahdeen xertiisii iyo butros wuu idin hor marayaa ilaa galiili halkaasna waad ku arki doontaan siduu idinku yidhi markaasay dhaqso u soo baxeen oo xabaasha ka soo carareen waayo way gariireen oo yaabeen ninna waxba kuma ay odhan maxaa yeelay way baqeen waa berigii maalintii ugu horreysay ee toddobaadka ayaa ciise sare kacay oo markii hore wuxuu u muuqday maryantii reer magdala tii uu 7 jinni ka saaray iyadu waa u tagtay oo waxay u sheegtay kuwii la joogi jiray iyagoo barooranaya oo weeya iyaguna goortay maqleen inuu nool yahay oo ay aragtay way rumaysan waayeen waxaan dabadeed isagoo suurad kale ah ayuu u muuqday 2 iyaga ah iyagoo sii socda oo beeraha tegaya markaasay baxeen oo kuwii kale u sheegeen kuwaasina may rumaysan dabadeed wuxuu u muuqday 11 goortay cunto u fadhiyeen wuuna canaantay rumaysad darridooda iyo qalbi engegnaantooda waayo ma aynan rumaysan kuwii isaga arkay goortuu sare kacay dabadeed markaasuu wuxuu iyaga ku yidhi dunida oo dhan taga oo uunka oo dhan injiilka ku wacdiya kii rumaystaa oo la baabtiisaa waa badbaadi doonaa laakiin kii aan rumaysan waa la xukumi doonaa calaamooyinkanna ayaa la socon doona kuwa rumaysta magacayga ayay jinniyo ku saari doonaan afaf cusubna way ku hadli doonaan abeesooyan ayay qaadi doonaan oo hadday cabbaan wax lagu dhimanayo waxba ma yeeli doono gacmo ayay kuwa buka dul saari doonaan wayna bogsan doonaan haddaba rabbi ciise goortuu la hadlay dabadeed ayaa samada loo qaaday wuxuuna fadhiistay ilaah midigtiisa iyaguna way baxeen oo meel kasta ayay tageen dadkii bayna wacdiyeen rabbiguna waa la shaqaynayay iyaga isagoo hadalka ku xaqiijinaya calaamooyinkii la socday aamiin